السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو إسلام دمان أقيارتا شربت له صاحبة قالية رير طبيب رير ددال سيقود سيجار سياليهي ملا في عينيهي ملا نبات قبا إلهي إذن كيسو وعدي رجينا مانتي مالين والبابا ميل كستود أدونك كتشوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا أو خير إيا فرحات لسو دواذا وما مواني مركلة وبرنامج كيني دودو جنتا يدي رجلنتا عشر كلا عافمات ku guddooma soo dhawaada dhiirigelin wanaagsan welcome ay leeyahay dadku waa isku jiraan gabar da'weyn gabar da'yar gabar fog gabar dhow ila garo gabar si guuda gabar si gaara waa la isku jiraa soo dhawaada dhoodhoojin wanaagsan meesha meel dhiirigelin waaye meel waano waaye meel saaxiib waaye meel duca Allah ka yeelo aamiin barnaamijka intaanan gelin kor ilaa iyo hoos team reer Germany iskale soo dhawaada welcome community dan galena insha Allah community wali waa furan yahay gabdhaha qaar dhahay hadoo kuma ku xiran yahay like gana anaga aan arki karno community dan ma xiran yahay nope community da anigu ma xukumo YouTube ba xukumo waa saayisi boodo asna kuugu casuuma meesha soo dhawaada welcome siyaabo kala duwan channelka u siboodi kartaan of course laakiin qofkii garanaya leeyahay okay community-da wuxuu ku casuumaa dadka programka markuu meel fiican u marayo like saaro laakiin sida la sheegay ani ma aqaan laakiin sida la sheegay waxa la yiraahdaa within the first minute saa marka u furto maadaama qofka aad saaxiib la tahay cashirkana aad u fariisanaysa ama lecture-ka aad ku nasanayso then like saar then yes ka bacdi wuu kugu casuumaa soo yaan salaama oo casuume suleeqo 100 plus haysata maama waana yariisi ataa madiidi kartid Allah ku barakeey inta la lecture dhageysatay saaxiibtinimo wanaagsan inta soo jeera like saarti ma sha Allah waxaan kaloon salaamayaa battery qofka ugu qoran tahay oo salaam habari saddex haysata waa nagu cusubtaa laga yaabaa Fatima aan salaama 95 waa dhawdahayaa almost there soo dhaw habaryar waxaan kaloon salaamaa Ikran waxaa haysataa 4 soo dhaw habaryar maybe waan ugu cusubtahay waxaan salaamayaa Xaliimo waxay haysataa 62 ma sha Allah waxaan kaloo salaamayaa Fatxi oo haysato 89 soo dhawaada welcome saaxiibtinimo wanaagsan okay dhalinyaro badan oo loo qafadhido waxay leeyihiin comment-ka noo fur comment-ka waxaa la rabaa inaa programka ku casuuntid xaqiisa siisid marka hadii like iyo lovely comment xoogaa ayaa laga gaasray bal aniguna iskala jimciyo xoogaha noo xirnaada dhageyso ka bacdina si dhaqaaq waa inoo iyo ka kale insha Allah soo dhawaada welcome wax dhiba ma jiraya waa goor waxa jira programka xaqa la siiyo baba shaashada garaac ma xiiqi karo islaam weynaanahay wax kale oo ku mashquulnaa ka badan hadaa adiga ba garaweyda ama ii quurin ama aadan programka like la rabin no problem iska dhageysa adiga ha lagu adeego no problem meesha like looma imaanin laakiin hadii like la muujiyo of course will be nice dadka ku dhageysa hadii ku siboodaan way fiicnaan lahayd qofna ma jeclo fursada badan ka dulasho ilaa weligeed ma buuxsamaysa sax soo waa ka hal mahmaaho waxaa jirto anoo yar aan helay mahmaadaas waxaa la yiraahdaa jazaar jasakatub asaaba jeejeeso doone qofka haduu jazaar yahay ama waxa loo qabanayo una qiimeyneynin wasmicnaynaya so aniga maanta oo dhama dhigi karaa like jazaar you know that wax lagu sheegaa maaha YouTube 20 sano jira meel ugu cusub yaho qaabka loo saaro like iyo subscribe dad loo sheegayo ma aha kumanaan Soomaaliyeed ku soo xiiqday like saara programka like saara waa loo saara ayaga laakiin waa inay xiiqaan anigu ma xiiqi karo amdan maybe waagi hore inay dili jira markoo saara laakiin anigu waaba ku yarahayba like saara subscribe saara channelka adika iskale saa ka yeeshin si qar Allah ka dhigo adeegan meesha ka ahay soo adeega Allah ii ka seenan si nabad ku soo gudbi anoo nabad qabo muhiimada intaas waay dadka waxaan ugu jeclaa ku ii duceeyo thank you soo dhawaada saidii sheegay programku waxa la yiraahdaa kor iyo hoos waxa iskala team Germany adeega isku mid waay of course dhiirigelintan isku mid waay dhageysi wanaagsan nafteena marka anaga u xil saaran kor ilaa iyo hoos inaan ka warqabno سادريميسد ومهم
inta badan dareenkaaga lagama hadlo markaad indhahaaga kuu macalina korkaaga aragto haddaa ku faraxsantahay alxamdulilah allah kuu sii siyaadiyo baarakallah haddii aad ka naxdo oo wax un isdaba mareena waa inaad daryeel u raadsato fadhi kuma yaalo xagla fadhiyaan xoolo kuma yimaadaan layiri dhagaysi wanaagsan lakjarada haddaa ku nasatiin saaxiibtinimo wanaagsan soo dhawaada welcome qaybta communityda aniga ma xukumo dadka like saara ayuu soo casuuma then nambaradan hortiina yaalana anigu waxaan soo qaataa gabdhaha islaamo barasho wanaagsan taas alaam I have no idea alaam waa marmaroo qayliya igu qaataya so nambaradan hortiina yaalo whatsappkooda dad badan waxaa jira emailgooda galo oo telegramkooda galo oo luuqyada kala galgalo anigu ma arki karaayo waa jirtaa inaan marmar booqdo qaybahaas laakiin si toose uma joogo so ha iska dhignina masajo waagii hore weekendkan geli jiray luuqyada hoose hadda ma galo yaa marba marka kaloo ka dambeyso dan adduunya way kaa daba imaanaysaa soo dhawaada okay su'aalo aad muhiim ah meeshan yaalo oo waliba quseeyo gabdhaha dadaalayo si guud iyo si gaarba su'aasha waxaa fiican in horta lagu bilaabo sideedaba salaan waxaan ku weydiin lahaa markaa dhakada kaga dhacday I know su'aashaad inay muhiim ku tahay lagana yaabee inaad si daruuri u rabto jawaab ama support laakiin qofka su'aasha weydiinaysa weligaa salaan okay qofka isbarta qofka isbar kadibna akhbaartaada u gudbi midda kale number muddo dheer ku hor yaalay 10,000 video dhex yaalo adigi miyaa marka ay leedahay waa laga fiican yahay numberka post ama videoga taabo ama screenshot ka qaad ila videoga hada screenshot ka qaada kaa roori maayo ila number wuxuu noqonaa warqada telefoonkaaga la yaalo then xarayso whatsappkaaga markuu kuu soo boodo fartiin salaan leh barasho leh kabacdina waxa aad ka hadlaydo mid kale ha iska iloobinayna da'diina way da'daada markaa sheegato isbedelada qaarood ka cabaadeedan da'daan ku cabira aniga ma kala aqaan cod kuma qiyaasi kara qofka meeqa sano jira soo gabdhaha qaar waxa laga yaabaa inay 20 sano jiraan meesha dadka qaar 30 40 Allah noo siyaadiyo ay ka badan ay jirto gabadho soo noloshana waxa ka soo marteen wax ka taataabo dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay dhaawac yihiin qalliin mareen dilan mareen caafimaad darro la kulmeen you never know dadka qaarna inay xoogaa nabad qabaan so haddaad nabad qabtana Allah kuu siyaadiyo wixii kaloo sibooda haddaad aad u liidatana doon haysi sii dhiganin uun waaba liidataaye haddaa haysi sii dhigato maxaa soo cadcad ka daroo dibi dhaleysana marka kor iyo hoos iska warqab that means qalbiyan iska warqab caafimaadkaaga hoose ka warqab fertilitygaada ka warqab quruxdaadii hanaankaada ka warqab qalbiyan iska warqab Allah kuu kaalmeeyo amiin waxaa jirta gabdho badan oo ka cabanaya caafimaadka ha ka boodin meeshaa ku nooshahay iyo ciddaa la nooshahay so aniga ma dhihaya adduunweynaha dhana xariiq arrinkan dumarka laga qaylisiiyo ama lagu qayliyo caafimaad darree la kulmaan caadadaa ka joogsan karto quruxdii hanaankaa ka dhumi karo kalsoonidaa ka dhumi karto argagaxaa ku dhici karo fiignaanaa ku dhici karto shoogaa ku dhici karo ilooshaa ku dhici karto niyad jab ama marooro dilaac ka muuqdaa ku dhici karo hurdo qalqalaa ku dhici karo cunaday ka go'i karaan ama aada u cuni karaan cunto qaldan si way ka sii daraan marka uma roono dumarka khaylada iska daa gacan qaad waaba level kalaba marka runtii gabdho badanaa dhaawacan because of waa laga qaylisiiya ama caruura kaa qaylisiiso ama xaajimicda kaa qaylisiiyo ama shaqo simxad loo qaylaha doonatay ood ku jirtaa ama amiin calaf kuu noqotay somehow dumarka laga qaylisiiyo qatarey ku sugayaan they said you know you when you're hungry adiga midkiid markaa baahatid soo gabdhaha qaar waxay u baahan yihiin nabad hadal macaan hadal qadarin leh hadal sharaf leh hadal karaamada hadal xushmeyn leh iyo nolol hore u socoto improvement leh oo hore u socoto qiimo leh
markii noloshu khasaaro noqoto oo sanadku dhasho dhamaado oo wax kala socdo lahayn oo wax ku soo galaayo lahayn oo tarankii haddii la doono aadan heli karin oo tabartii kaa yaraatay oo quruxdii kaasii baaba'aysa den waa fed up a istaagaysaa. So gabdhaha qaarkood waa idii garaabaa markaad leediin maamooy waxaan ka cabanaa nolosha oo dhan, waxaan cunadeeda u bedeli waayo, buuqyaa igu furan. waayo cunooyinka weliba sida shaaxa cadeyska, keega, malawaxa, biidsada, kabaabka, wax la shiilay, baradhada waa comfy food to be honest. waa cunooyinka loo cuno emotional support. kabashiinaa ku carare, downadaa ku carare, keegaa ku carare, pasty ama cuntooyinka cheeska dhexda laga geliyaa ku carare. cuntooyinkaas waa cuntooyinka markaa cunaysid aa probleemada iloobaysid. xataa fizzy drink, kookada iyo faantada iyo shaanigii marka la fuuqsanayo dadka qaar they don't remember anything completely. They block all noise, all qaylo, complaining, raqda. cuntadooda markay rig ka siiyaan dhirgaan problemkii adaab sheegaysa. So if you eat junk food or fast food or cunto Somali for emotional support, runta iska sheeg. then waxa kugu qasbay ama waxa aad painka aad ku dilaysid ma pain hadda taagana ma xanuun hadda taagana ma soo xanuuna soo martay. mararka qaar xanuunba ma aha waxa soo martayna ma wax taagana ma waa hami. Soomaalida way hadasho waxay tiri hawo durugta wiil doorahay halow ka turtaa. soo hamigaagu hadduu wax aadan haynin aad tiigsanaysid then emotional support u baahnaan kartaa. mararka qaar maaha cunaa cunaysid oo isku daldalaysid, it's just a wareeg waa ama qaylo waa ama war waa ama oohin waa ama hurdo waa ama ka caaganaan howl guri waa, dadka qaar guryaha ku daxalaystay, ama iska dhaadhicin waa ama sheeko waaye waa buuqaaba kugu furan, sheekaaba kuu socoto, weelkaa dhaqanaya sheekaa socoto, guriga hagaajinaya sheekaa socoto, shaqa u socotaa sheekaa socoto, sheekadiisa iskaga reebaa waa. marka ani waxaan kugu advice garayn karaa ama aan ka advice garayn karaa baro painka, xanuunka baro. ma ka roori karno, ma inkiri karno ama ma deny garayn karno, waa bara karnaa. laakiin markaa baranaysidna ha iska iloobin duco, waa sir. ducayso in ilaahay kuu saqiro waxa aad la daalaan dhacaysid. laga yaaba inaad meesha ku nooshahay tahay, gurigaa degan tahay tahay, ciddaa la nooshahay tahay, qaabka lagu maareeya tahay, wax kaa dhiman ama kaa nusqaansan ay tahay. ogow ibni aadanka ma ogaan kara baahidaada. sometimes dadka waxaan ku eedeynaa maxay u buuxin waayeen booska inaga bannaan. goorkoo ilaahay qadaro ayaa wax walba ee kuu qoran aad ummadda ka helaysaa. kasoo qaadka ilaahay baa iskala ducayso, ilaahay waxaad u baahantahay inuu qofka kaaga soo qaado. kelmad may noqotaa, howlqabad may noqotaa, adeeg may noqotaa, qarash may noqotaa, I don't know waxaa dadka kale kaga baahan tahay. allaha kaaga soo qaado, allaha naga qaado wixii khayr leh oo qof kala qoseeya. sax. so we're dealing with our emotion. so kor iyo hoos waxaan idiin dhahay ka warqab wuxuu leeyahay stage ama step by step wax la fahmi karo. so waxaan celcelinaynaa waa qurxi hanaan, waxaan celcelinaynaa waa toosnaan, dhalinyaranimo, wacnaan, dhalaal, kalsooni, farxad, wax isku jirjira celcelinaynaa. sax. adduunyada daynmaysa marka. adduunyadu sida adiga aad dareemaysid oo aad rabtid oo kuu roon, of course allah kuu sahle, kuuma daynayso. so waqti yaroo kooban ay ku siisaa qurux, and by the time oo waqtigaas kooban quruxda aa haysatid then aqligii baan xasi lahayn for badi dadka. waa ilmanimo, waa cadow laga koro markii Soomaali leeda waa same, waa saas. so waad yartahay, timihii baa dhabarka kuu fadhiya, waad yartahay, dhabankiiaa kuu dhalaalaya, waa yartahay, adiga dhan hawada maraysa waa biibiibaysaa. you can do anything, I mean almost anything. you're beautiful. quruxdaadaaba lagugu ammaanaa, lagugu jeclaadaa, lagugu dooqsadaa, lagugu guursadaa, xabiibta lagugu dhahaa. you feel special at the top of the world, but kuma daynayso nolosha noocaas, halkaas kuuma dhaafayso. by the time aa 40 tahay oo soo xusub baruuraanaysaa, xoogaa is soo bedelaa dhacaya, oo weliba dadku u kala daran yahay isbedelku. by the time aa 60 tahay qof weyna waa yeelaa tahay,
and before you know it you already middle age. waxay ku dhacda marka lama yaqaano. taas waaye maalin kasta inaad wax u barato noloshaada muhiim oo tahay. barashadina waqtiga kuma saamaxayo. adduunyadu waa entertainment. adduunyadu waa riwaayad, dadkuna way matalayaan. ma maqasheen amaleyna. so marka lagu leeyahay kayd laho, wax meel dhigo, wax fiican isku quur, naftaada daadahee, naftaada roono, yes it's all nice. laakiin routiinkii iyo lifestylekii nolosha Soomaaliyeed ma kuu ogasha? 90% no, nooma ogolo. waa aragteenaan u malaynaa, indhihiina idiin macalina. qofaa xanuunsana, dhakhtarka u taga, hal dawaa loo soo qoraa. waay waxaa laleeyahay hal dawo ka badan ma fahmi karo, waa lagu talinaa. waxaana laga yaabaa hal meel ka badan inay ku xanuunayso. u fiirso, mararka qaarkood daryeel badanaa u baahan tahay. lagugulama talinin naso. hadday macquul tahay meeshaa ku nooshahay dabaal ka raadso. haddaadan garanayn laakiin ay isku gelin bad iyo webi, khatar waa. laakiin haddii la heli karo jim dabaal leh, amaba lagu baro meesha swimming poolka ama dabaasha qaabka loogu dabaasho, then markaa kalsooni isku qabtid oo dabaalan karto. inaad dabaalato si joogtaa is nice. haddaad socod jarmaada sameyn kartid, which is daawo wonderful, waa la dhibaa. haddaa heli kartid sheekooyinka qalbiga diiriyo ama qalbiga u fiican, sida maxaadirooyin fiican oo kale haddaa heshid, qof saan oo kale kuu lagjareynaya, kuu sheekeynaya, dhageysatid, xisaabtantid oo waayahaaga iyo danahaaga iyo ku xisaabtantid. wax walba waa calaf. ilaahay baa bixiyo. ilaahay u xamdi, ilaahay u shukri. waxa already aad haysato kabacdina siyaado khayrle ilaahay weydiisa, ummadana u sii ducee, which is nice. then tartiib tartiib adiga oonan iska dayrinaynin, ha ka dayrin noloshaa diriska la tahaa layiri. isku fiirso tin ilaa ay cirib ama kor ilaa ay hoos. then waxaa haysatid ku qanacsano. wixii kaloo kaa dhimana tartiibu raad raac. taasoo marka waxaa jira system aan easy lagu fahmi karin, laakiin qof walba ee muhiim u tahay inuu fahmo. waa laga rooraa. self careka waxa loo yaqaano, ama naftaada xanaaleyso ama xanaalada nafta, waa laga rooraa. waxa laga helo markaa isxanaaleysana waa loo baahan yahay. soo qofkaa gacanta isku haayo, mentally relax oo noqday ama maskaxiyan xasil oo noqday, maasha allah. nafaqa ahaan qof walba wuxuu cuno ciidamiya. dabcan dhulka ilaahay wixii kasoo baxay dheef la taala. wax noolaa ku noole, ool dabiiciyaa la noqday ama dabiiciyaa loo batee. hadalka waxaa la yidhahdaa ilaa afkeena waxsan ka keen. hadalkii waa lagu xisaabtamay. hadal iswiidaa lagu hadlay. hadal ducalahaa loo batee. ilaaha loogu xamdi, ilaaha loogu shukriye. ummadiina waxay samaysay ritaan hadalkii wanaagsan. hadal wanaagsanaa loogu jawaabaa. so calaaqaadka dhan wuxuu kuu noqday beautiful. cunadii wanaagsanadoo cunaysa waxaa ka heshay energy fiican. xasilkii qalbiga waxaa keentay hami cusub ood adduunyadii ah hami u leedahay inaad heer ka gaarto. dabcan maalin kasta dadaa heer gaara, of course adigana ilaahay agtiisa waxba kuma aha inaa heer gaartid. so lifeka dhan wuxuu kuu noqday mar labaad ama again sweet. ku macaanaada lifeka dhadhan oo kuu lahaada. maadaama aniga dadka waaniyo, dabcan dadka isku mid maaha. dadka qaara aad u diiqadoonayo, dadkaasi kale nooca dareemayo. dadna wuxuuda waa iska simple, waa wax quseeyo caafimaadka lee dhoodhooji, lifestyleka wax ka bedel. dadna waa dad aad u damqanayo oo arrimo adag soo maray ama iskaba dhaadhiciyay inay ku dhex jiraan, ama loo soo dayriyay caafimaad ahaan, ama qof uu xumeeyey, ama nolosha ay ku adkaatay, waayaha fahmi waayo. so qofku markuu arrinkii anima dhihin Soomaaliya dhahdo khayr Allah siiyo, oo sidii u kala koraysaa loo kala qaadaa. qofka markuu waayaha fahmo, then waxaa soo baxayo xasil. xasilkii marka waxaa lagu leeyahay wax allaala waxaa ku sugan tahay, meeshaa ku sugan tahay, ku faraxsano. and I know dadka qaar kuma faraxsano meeshay ku sugan yihiin iyo nolosha qofkay la qaadanayaan iyo qaabkay nolosha u qaadanayaan iyo siduu waayaha ka noqday. waayo
waxbaa gadaal dambe aa ka fahmaysaa inay nusqaan tahay. laakiin see yeelahe calafkaagi waaye, noloshaadi waaye. This is you and what ilaahay kuugu talagalay waa. So inuu ilaahay kuu barakeeyo, uu ilaahay kula heshiisiyo noloshaada, uu ilaahay kuu miceeyo, ku duceyso. Okay, this is your life. cidna kuuma bedeli karta cidda aad tahay. waxaa calaf u leedahay cid kale ma cunayso, waa aragti. maalinta aan waxaan kuu qornayn aad ku fikiraysa, xalaa ku seexatay, berri waxaa qadada kari ama quraacda samayso, again waa lagaa leexinaa because kuuma qornayn. sidaa wuxuu rabtay maahana si kale sheekadu noqotay. marka meelna loo soo joogo ilaahay baa og. wax walba meelay soo marayaan ilaahay baa og. ku xisaabtan adigu inaad dadaasho un maalintan aad ku farxsanaato, aqbalna aad la timaado. So sidaan waxu rabna ilaahay baa og. qof walba qalbigiisa ilaahay baa daalacanaa. sidaa waxu rabta oo kuu qeyr allah kuu yeelo. aamiin dhammaanteen biduca la iska bareedee. arrinka xigta waxay tahay waxyaabaha nagu soo kordhi doono waayuhu markuu sii socdo. mararka qaar waxaa la yidhahdaa aqliga kuu shaqaynayo da-dhexaadkaaga ma shaqayn doona da-daadu markii xagga waayeelka marto. waa macquul meeqa qof oo waayeela oo waxaa jiro noqday slow ama gaabiye. mararka qaarkood waa aragteenaan umalaynaa way ku adagtaa qof waayeela inuu shaqo helo. waayo adduunyada wuxuu rabaa xoog. qof xoog loo rabaa dhalinyaro ah. adiguna waa xoog yarayse ama waa xoog gaabise. so adduunka ma rabo. haddaad already ayaga la joogtay 20 sano lasoo dhaafay ood meel shaqaale ka ahayd, tan shaqadaada hayso. it's not easy after age of 40 easy in shaqa lagu helo, especially markii qurbaha la joogo. taas waa loo dhahaa committed shaqadaada ku noqo. haddaad rabto inaad shaqadaada bedelatana ka carar goor intee tahay ood weli yar tahay oo company kasta ku qaadanaya because of your age. xanuun hadduu yimaado mustaqbalka foomamkaa buuxinaysid xanuunka inaad ku confirm garaysid waaye. xanuunada qaarna waxay kaa xanibayaan horumarkaaga iyo shaqadaada. xataa xanuunaadka qaar waxay xanibaan taranka. haddaadan la tacaalin dee dabcan gaasir ay ku keeneen ama ila meerayso. maadaama ay dhiirigeli waxaad dhahaa ha ka roorin waxay dantaadu ku baday. maanta haddii meel dhaqaale looga baahan yahay adna aad dhaqaale haynin waad ka gaabinaysaa. nin walba taagtiisu tallaabsada. nolol wacanaa fiican, nolol wacanaa la galaano, gurigaaga waa wanaaji inta wax walba dhaqaalaa lagu dabaraa. yes, guri qurux badanaa gadan kartaa iska daa karaysigiisii haddaad dhaqaale haysatid iskuna ogoshahay. but if you don't know how to manage life, even dhaqaale haddaa haysid you don't know how to manage. si aad u maamusho mataqaanid ama u maaraysid. so markaa noloshan simbalka oo hagaajinta farxadaada, quruxdaada, hurdadaada, nafaqadaada markaa taa soo hagaajisid, then life waa dabaqad sama ama waa salaan ama jaranjaro. so then you exceed lifekaada hore usii socone. laakiin haddaa intii hoose level 1 haddaa hagaaji weydid maybe minus aadeg hoosa usii daadege. dadka qaarkood marka lagu leeyahay nolosha ka dhaceen, nolosha ku adag, way baabeen, way qaraabeen, way washeen, way suufiyoobeen, marka lagu leeyahay they go down, hoose usii degeen. so waxa dadka u keeno inay baaba'aana waayo haddii nala bari lahaa anagoo yar sida nolosha loo taakuleeyo oo laysku tabantaabiyo oo loogu qanca waxaad haysato oo wax walba oo adiga xaggaaga soo jiro maasha allah ilaahay loogu xamdiyo loogu shukriyo soo da-da aad jirtid. waayo mararka qaarkood annaga iska qaylinayn maahna da-da weli way noo fiican tahay maasha allah. caafimaadku waa noo fiican yahay maasha allah. dhaqaalo waa haysanaa, dabkeena ma dansano alxamdulilah. wax waa fahmi karnaa, wax waa qornaa, wax waa aqrinaa, wax waa dhageysan karnaa, wax waa fahmi karnaa. haddaadan laakiin qiimeynin waxaad haysato den tallaabo kale oo sii siyaadaa ma arki kartid. qiime horta levelkaaga hoose ku qanac. hana ka roorin waxa maslaxadaada ku jirto. runta dadka waa u roon tahay laakiin way ka rooraanaa la dhahay. so ha ka roorinina insha allah, iskuna fiirsada. okay, another success story fiirinayna insha allah. allaha sahlo allaha saqro aamiin. okay, baayadan waxay leedahay muddo dheeraan saaxiib kula ahaa inkastoon kasoo bilaabay YouTube
muddo dheer channelka kale tabiibi dadaalan ku xirnaan jiray waxaan fahmay inaad maamo waana u badan tahay so maamo waa soo wareegay alxamdulilah intaan saaxiib kula ahaa wax badan ayaan si sahlan ku aqbalay wanaageeda waa ii muuqday maanta alxamdulilah isma dhehaynin isbedelada aan ku fikiraayo oon soo qaban waaye baa gaari doontaa laakiin si sahlan ayaa ilaahay iigu saqiray so waa ka faa'iidaystay kelmadaha xigmadda leh ee Soomaaliyeed intaan kaa maqlo iyo in kaloon meelo kale ka maqlay iyo inta kaloon fahmayba waa isku dhudhufsaday hadda hadallada xataa markay ummaddu hadlayso aadaan u laba dhageystaa si haddii aan kelmad xigmad la ka dhex maqlo aan ula dego waxaa jirta muddo dheer oon anigu aaminsanaa noloshaydu inay adag tahay alxamdulilah ma adko nafnoo lagama qustaa layiri waa dadaalay dantaydii waan daba socday anoo weliba si gaaban iskaga daba socdo oon isluraynin alxamdulilah waxaan ka bilaabay inaan u fiirsado internal ama gudaha culaysyadii aan dareemayay waxaan ogaaday inay badidooda u baahnaayeen cilaaj quraan arrinka kale cilaaj nafaqo iyo ammaan casuumaad iyo farxad waxa yar qofkii iimaanka ku qabo baa wax weyna ku qabo alxamdulilah maanta waxaan ku faraxsanaa inaan milkiile guri ahay ninkay shaqaystaa shaax cabo alxamdulilah waxaan ku faraxsanaa inaan xaas ahay oo sawj igu faraxsan oo ii baariya ilaahay ii sahlay waxaan kaloon ku faraxsanahay inaan maamo ahay oon beebigii koobaad dhalay waxaan kaloon ku faraxsanahay inaan ummadda hadalladooda aanan kasoo qaadin ba'yata aadna aan u jeclahay hadallada xigmadda leh ee Soomaaliyeed maasha allah aan isku leeyahay intii islaamiga guul gaarteen allah u barakeeyo anigana allah ii sii siyaadiyo mama thank you wax badan aan kaa faa'iiday khayr allah ku siiyo beautiful gabadha madaxa banaana nolosha waa ku adkaataa gabadha garoobka waa ku adkaataa gabadha ilmaha sidato ama hala qabo ama garoob ha noqote way ku adkaataa gabadha xaaska ahna way ku adkaataa nolosha da'da adkayso waayaha adkeeyo xanuuna adkeeyo amarka ilaahay itixaana adkeeyo noloshuna hayaacdo adayg badanaa ku jiro hayaacdaysiisi waxaa doontaa cunee waa iska yaacee laakiin xanuunaa la socdo dadka nolosha ay u xisaaban tahay afkoos wixii qoranaa la qaadaa ilaahayna ugu xamdiyo ilaahayna ugu shukriyo dadaalkay sameynayaan daba socodka danahooda qiyaasi kara wixii qiimo leh qofkii qiimo leh daryeelkii qiimo leh dadaalkii qiimo leh dadkaas waa dadka nolosha guusha ka gaaray ilaaha oo sii siyaadiyay aamiin marka qofka walaala gabadha waxaan u leeyahay maasha allah habari waa mahadsan tahay sii wad dadaalkaaga ilaahayna ugu xamdi ilaahay ugu shukri wixii guulood gaartay ilaa ilaahay baa ku siiyey gabar walba guushay gaartana ilaahay ha u sii siyaadiyo aamiin yaa rabbi mararka qaar guulaha aan gaarayna maba oginba hayaacdadan ka dhex gaarna guul ilaahay nagu siiye calaf ilaahay nagu siiye ubad ilaahay nagu siiye nolol laakiin mararka qaarkood waxaa jirta inaan adayg kasoo dhex baxnay nolol difficult aan kasoo dhex baxnay oon adkaysanay oon dadaalnay oon karti muujinay ilaahay talada saaranay dee guushii aan gaarnay marka dadka kuma ogo dadaalada aa wado dantaada aad daba socoto caafimaadkaaga aa u sabrayso baahiyadaada ilaahay u sheeganayso markaa heshana ilaahay ugu xamdinaysid ilaahay ugu shukrinaysid so that's beautiful wixii yar qofkii ku sabraa wax weyna ku sabri karo afkoos waxaa la yidhaahdaa dadka waxa ugu qiimo roon dadka aanan ku kibrin heerka ilaahay gaarsiiyey waayo dad badanoo waxaa jira heerka aan gaarnay ama nolosha aan ka joogno aanan heli karin dad baa xataa lixaadkooda maanta dhaawac yahay ee rabi lahaa inay caafimaad dhammaystiran ama dheelitiran ay helaan macaadalaha siyaada kale marka allaha noo kaalmay dhammaanteenba saaxiibtinimo wanaagsan kor iyo hoos u fiirsada daryeelaa loo baahan yahay maaha inaan qurux lee daba ordayno qiimaa la rabaa farxadaa la rabaa kalsooniyaa la rabaa iimaanaa la rabaa akhlaaqaa la rabaa
da'da socotana Soomaaliya hal shaabadii ku dhajisay waxaa la yiri weynaada ilaahay idankiisa ilaahay baa weyn oo waaxida wanaagsanaado marka rag hadaa tahay iyo dumar hadaa tahayba weynaanta wanaageeda laga rabaa fudayd iyo akhlaaq darro iyo xanaaq iyo masayr iyo iscuncun iyo cagta dhulka ku garaac inaad cid walba xaq u leedahay iyo waxaasoo dhan looma baahno dadku way sameeyaan laakiin ma fiicno khatarteedayna leedahay ayaan daradeeda leedahay iswaalka waayo cara allay leedahay waxyaabaha qaarkood marka lagu dhaqmo so relax ilaaha noo caroonin ku faraxsanow danahaaga ka warqab oogadaada ka warqab isbedelka ku imaanaa quruxdaadii hanaankaaga tabartaada aqligaaga fikradahaada ilaahay baa wax leh laakiin adiga shaqsi ahaantaada waayaha aad dhex marayso ku fikir hadduu waayaha ku wacanya allah kuu sii siyaadiyo aamiin dhammaanteenba waayuhu hadduu adag yahayna ku sabar waa la moodaa biidnillaah so waxa ay gobol rabto waxay tahay dabcan waa xariir beautiful haddana tabar dadku inta badan waxay dhahaan energy mahaye way iga taalaa sometimes haddii quruxdaada dhaawacanto tabartaaduna way dhaawacantaa waayo when you see yourself are not there anymore sida heblaayo hebele ahaan jirta ma tihid dambuuqaa keeni kartaa doodaa keeni kartaa yuusaa keeni kartaa calaacalaa keeni kartaa niyadjabaa muuji kartaa so you need to boost your confidence insha allah meelo badan kasoo marmar wixii hore ay hayaacdo ugo wixii awoodaada tahayna yay ugu dhicin anigana habar fadhidaa oo lagadin la sahlan so ilaahay bay awoodo sugnaatee wax fiican isku ogolow kow mararka qaarkoodna waa sixis styleka dharkaaga sax underwearkaa xiratid waa sax wixii qalad ka imaan karo ama aan ku fiicnayn hygiene ahaan iyo caafimaad ahaan ugo let go-na baro haddaadan baranin sii daa fasax waxaan iska tuur iska bedel then you going nowhere with your life meelna umala socotid noloshaada ila meeraysana waxba kugu soo kordhi mayso adaa lagaa rabaa how long aad digsiga wax ku karsatay haysatay how long aad haysatay weelkaa wax ku cabtid gogashaad sariirta ku firaashata how long aad haysatay waxyaabaha aad isticmaasho ilaa intee gurigaaga routiinka yihiin bedel sometimes usoo jiiray haddaad doonto laakiin try to change wax un iska bedel hadalkan ku hadlayna u baahan wax laga bedelo si xasilaa lagaa rabaa weynaadaa wanaagsanaadii ku tiri Soomaali soo celcelinta quruxda iyo hanaanka ilaah weyn oo waaxid adaa lagaa rabaa kor ilaa hoos ina u fiirsato adaa lagaa rabaa adigu waxaad rabtid waa ina xariir noqoto xariirta iga shaqeey waa in laga shaqeeyo haddii ilaahay iska kaasiyo adoo xariira then is beautiful ilaahay iska kaasiyo dayaraan kuu helinaysi haddaad si min allahiba beautiful iska tahay alxamdulillah laakiin sometimes iga shaqeey waa in laga shaqeeyo so la tacaal naftaada good luck waa inoo ya cashirka kale hadduu ilaahay ka raali noqdo soo dhawaada welcome gabagabadii gumaamidkii waxaa maraynaa cashiradeeni caafimaad allaha keeno dhiiggii dhimirka nabad ku raaco waa inoo iyo systemka kaloon idiin soo diyaariya insha allah soo dhawaada welcome waxyaabo yaryaroo waxaa jiro sheekooyin oo ay dumarku u baahan yihiin hadalka si toosa anigu uma qayaxo waayo wuxuu noqon karaa hadal u baahan in xoogaa kor laga goosto marka ila gara sheekada dhageyso haddaan kor ka goosano I hope inaa fahmi kartiin way jiraan dad ku fahma hadalka markay si toos loo kor istaago laakiin xoogaa waa ceeb u fiirsada hadalka dadka qayaxo dadka way jecel yihiin qaaraa marka aflagaa doonaa qaaraa marka ku dhaca hadalka qari simxad ani uma abuurooyo lagjarada laakiin inaa fahantaan isku daya way hadal wuxuu fiican yahay inuu dahaaran yahay qofka inuu fahmo hadduu diiday dan qofkaasay u taallaa laakiin qofka hadalka sharafta iyo karaamada leh fahmi karo oo weliba xataa kheyr allaha siidada waxay dhahaan habareeray waa ku mahadsan tahay kelmadda si toosa diirka ugama qaadid hadalka sharafta iyo karaamada leh ee weliba sida qurxan loo sheegay waa ku mahadsan tahay intaasaa nuga filan qofkaan fahmi karin no problem meel kale wax ka fahmo allaha u kaso wixii dambeena allaha ka cafiyo I love that way hadalka markii sharafta iyo karaamada laga qaado qofkii ku soo noqonaya marka waxyaabaha qaarkood fadlan u fahan adaa lagaa rabaa meelaha cidu ay arkayno oo adigu arkaydo adaa dhuudhuujinteeda lagaa rabaa kow
baahiyada qaar oon qabno oo aan dareemayno oo u baahan wax ka qabadne adaa lagaa rabaa inaad wax u ogolaato baaristeeda, fahmadeeda, howlqabadkeeda, wadwadkeeda. den adaa iskale soo maaha, ilaahay baa wax lehe, howlqabadka aduu ku quseeya, nafta adaa iskale, quruxda adaa rabay, tabarta adaa rabay. den daba ora dantaada wixii la waraabiyaa nuure insha allah. soo isxisaabiya, kulley waxaan noo joogsanayni waa yaraan, laakiin celcelinta allaha sahlo, allaha saqro. waa inoo cashirka kale insha allah. soo dhawaada, welcome and good luck dhammaantiin. salaamu calaykum.